nidhiye hogaami Puntland in badan Soomaalina haybiyo goob alla wada heshiiye hogaami Puntland in badan adada furay hananka isbriyada horseeday himilada lahayo hadanbaad dhabaysay hambalyaan ku nidhiye hogaami Puntland in badan Soomaalina haybiyo goob alla wada heshiiye hogaami Puntland in badan taniyo in badan hogaami Puntland adada furay hananka isbriyada horseeday himilada lahayo hadanbaad dhabaysay hambalyaan ku nidhiye hogaami Puntland in badan Soomaalina haybiyo goob alla wada heshiiye runtii waa maalin aad iyo aad u farxada waa maalin runtii aan ka mahad celinayno sida diiran oo wanaagsan oo aad noo soo dhowayseen dareenka fiican iyo shaqada fiican oo maamulka degmada iyo akhyaartu ay qabteen si ay wafdiga iyo aniga ila socday aad magaaladan noogu soo dhowaysaan waxaan ka mahad celinayaa dadka magaaladan deggan kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda jiraba sida la yaabka leh ee magaaladan bilicdeeda iyo dhismaheeda iyo horumarkeeda ay qaybta weyn uga qaateen oo ay soo gaartay magaalooyinkii waaweynaa ee Puntland lahaan jireen inay maanta kuwa badan ay ka bilic wanaagsan tahay ka horumarsan tahay dhinac tacliin iyo dhinac tayo intii ka shaqaysa waan uga mahad celinayaa waxa Puntland lagu yaqaanay muunad u tahay dadka reer Puntland kartida isku tashiga horumar jacaylka dawladnimada maanta ay marqaanti waxa u ah magaaladan waxaan rajaynayaa dadka reer Puntland meel kasta ay joogaan sida aan ugu soo aragnay magaalooyinkii aan soo marnay khaasatan gobolka Mudug dhinaca horumarka bulshadu wuxuu leeyahay door aad u weyn oo dhaafsiisnaa shaqooyinka arrimaha bulshada gaarsiisan kaabayaasha dhaqaalaha jidad eerboorro dekado runtii waxa weeye waxay muuqaal iyo munaasab u tahay Puntland inay isku filnaatay ku filan tahay inay bulshadeedu adeegto dadkeedana inta aqoonta iyo hoggaanka leh iyo inta kaleba iyagoo isku duuban inay wax qabsadaan waan u kuurgeli doonaa qaybaha kale bulshada iyo degaankaba waxaanse ka mahad celinayaa runtii soo dhowaynta diiran iyo sida wanaagsan iyo xamaasadda dadka reer Puntland waxay nagu soo dhoweeyeen iyo magaalooyinkii aan soo marnay oo dhan ilaa iyo Saaxo Galdogob Xarajaale Daarasalaam meelihii aan soo bayro laga bilaabo reeg oomane waa ku dhoweyd middan imaamkii waa joogayo wacdaro adag baa laga dhigay halkaas wax badan hadda xoogaa iyagaaba dib noo dhigtay marka waa runtii waxay muujinaysaa sida dadku iyo hoggaankoodii isugu xiran yahay dadkaas soo baxa iyaga isma soo saarin hoggaan baa soo saaray waan uga mahad celinayaa dhammaan hoggaanka maamulka iyo midka dhaqankaba labadaba oo iskaashanaya waa isu dambayn doonnaa waa hambalyo waan iga mahad celinaynaa waa salaamantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu